لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aada mahadsantihiin maasha allah baaraka allahu fiik xaadarana oo kasoo qayb gasheen inaad sheekha laga faa'iidaysto sida ogtiin sheekh waxaa meel dheer nagu imaaday inaa jaaliyadda oo soomaalida u faa'iideeyo jaaliyadda muslimiinta dhanba inuu u faa'iideeyo oo magaalada dandoog ah marka ilaahay subxaana wa tacaala sheekha ajir ha ka siiyo khudbaatii asigoo soo qaaday oo dadka muslimiinta u faa'iideeyo cinwaanka muxaadara tilmaamka qofka toosan cinwaanka sheekhu muxaadarada saasoo cinwaani uga dhigay marka insha allah muxaadarada waxaan ka rajaynaa inaan dhammaanteena ka faa'iidaysano jaza allah khayr sheekh ilaahi subxaana wa tacaala khayr ha siiyo falyatafadal mashkuuran maajuura الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan filayaa in codku waadix yahay oo la maqlayo إن شاء الله maanta muxaadaradeenu waxa ay ku saabsanaan doontaa mowduuc haddii la balballaariyo oo la fidiyo aan ka yaraadeen 10 muxaadaro ayaan waqtiga oo yar dartiis waxaan isku dayayaa insha allah inaan hal fadhi kusoo koobo waxa uu ilaahay leeyahay jalla jalaaluhu إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلهي ضد وحكو دعي كما بدلوا وحسيري ضد أما وناقها أما شرعها كما قالوا إلى أي يوقف قف ينفنفسوا بدلان معناها waxaa la rabo in ummadda oo dhan ay hesho ama laga helo waxaa la rabo ummadda oo dhan inay iska bedesho ama ay la timaado waxaa loo baahan yahay in qof walba horta isagu dhinaciisa uu iska saxo oo iska bedelo silsiladda mujtamacu isugu xiran yahay oo bulshadu isu saaran tahay baa waxay tahay silsiladaas ka bilaabataa qofka oo soo marta guriga qofkii iyo qof kale markay ishelaan laba qof oo guri dhisay bay noqonayaan oo guri baa imanaya gurigii waxaa ka tafiirmaya ubad oo waxay noqonayaan qoyskii iyo qoysas kaleeto isu tegay baa waxay noqonayaan degsiimo iyo bulshadii oo nidaam samaysatay iyo maamul iyo kala dambeyn ayaa waxay noqonaysaa dowladihii isu tegay baa waxay noqonayaan ummadaas weyn marka waxa ka khariban iyo waxa dowladda ka khariban iyo waxa bulshada ka khariban ama qoysaska iyo guryaha kharibaadaasi waxay kasoo bilaabanaysaa unuga koowaad waa qofka wixii u wanaagsanaada intaas oo dhanna waxay kasoo bilaabanayaan qofka meesha mudan marka in la dul istaago oo haddii wax ka khaldameen la soxo si inta kaleeto ay u saxmaan waa qofka in la dul istaago waxaynu leenahay marka wixii qof ka khaldamay ayaa waxay saameyn karaan gurigii iyo qoyskii iyo bulshadii
dowladdii iyo ummadooda wanaagga uu qof sameeyona wuxuu wanaagiisaasi wanaajin karaa oo wax fiican kusoo kordhin karaa intaas aynu sheegnay oo haddaba waxaa marka aynu maanta muxaadaradeena ama cinwaanka mawduuceena ka dhiganay waxa weeye sidii loo heli lahaa qofka wanaagsan ee bulshada saameynta wanaagsan ku yeelan kara qof wanaagsan oo naftiisa u wanaagsan inta uu ku milmona wanaajin kara hadduu guri dhiso guri wanaagsan oo gurigaasi noqonayo hadduu umad galo ubadkaas umad wanaagsan noqonayo hadduu bulsho ku dhex jiro wanaag kusoo kordhiya macnaha waxaa kale hadduu dowlad iyo qaran ku dhex jiro wanaag soo kordhiya ummadda islaamka oo dhan guud ahaana wanaag usoo kordhiya qofkaasi marka wuxuu leeyahay oo culimmadu ay u sameeyeen tilmaamo qofka muslimka ah ee wanaagsan qofka toosan ee wanaagiisu intaasoo dhanba badbaadin karo ilaahay baa badbaado leh sabab u noqon kara macnaha waxaa loo sameeyey tilmaamahaas 10 tilmaamood baan kusoo ururinaynaa insha allah 10kaas tilmaamood tilmaan kasta oo ka mid ah waxay u baahan tahay in iyada keligeeda muxaadara laga sameeyo oo gelin la dul istaago laakiin waa soo koobanaynaa si aynu inta macnaha magoolka ah uga wada helno oo markaas nolosheenna aynu ugu iftiinno waxaa loo baahan yahay marka qof kasta inuu dul istaago tilmaan kasta marka aan sheegayno aada naftaada ka fiiriso anugu aan ka fiiriyo adigu aad ka fiiriso la isweydiino qofkaas ma aha yani haddii wax kaa qaldan yihiin bini aadan baynu nahay oo dhamaystir ilaah baa iska leh see u dhamaystiri karaa oo markaa qofku ka shaqeeyo tilmaanta koowaad ee qofka wanaagsan ee mujtamaciisa wanaajiya ee wax hagaajiya laga rabaa waxa weeye caqiido baraxla in caqiidadiisu ay tahay caqiido saafiya oo aan shirkiyaad iyo shubuhaad midna lahayn bimacnaa in qofkaasi uu aaminsan yahay iimaan dhaba uu yaqiinsan yahay yaqiin dhaba allaha weyn ee wanaagsan ee ina abuuray ee awoodda oo dhan iska leh isaga uu ku kalsoonaado alqadaa walqadar iyo arkaantii iimaanka oo dhan qof si saxa u rumaysan oon ruxmin waa inuu ahaado marka ay dhibaato kugu dhacdo xabadda keliinka ah iyo aayadda qur-aanka ah haddii ay ku kala weynaadaan marka dhibi kugu dhacdo inaad ilaahay u cararto haddaad ku kalsoonaan weydo oo qaramada midoobay iyo adduunka dadweynuhu hana soo gaaro ay afkaada ku tiranto khalal baa jira ilaahay kuma diidin inaad bini aadamka nool ee waxtarka leh kaalmaysato laakiin inaad iyaga un sababtaadoo dhan dul dhigto oo haddaysan wax kuu qaban inaad baaba-ayso aada aaminto waa yaqiin daro alqadaa walqadar bayna dhaawacaysaa iyo iimaankaaga oo dhan shucabu liimaan iyo laamaha iimaanka oo uu qofku si saxa ula yimaado maalan laamaha iimaanka maxaa ka mid a shucabu liimaan waxa ugu hooseeya oo iimaanka ama qofka caqiidadiisa iyo iimaanka iyo wuxuu rumaysan yahay halka ugu hooseysa ee laanta ugu hooseysa ahi waxa weeye imaadat ladaa can ariiq waxa dadka dhibaya oo jidka laga leexiyo waxaad isweydiisaa marka haddaad adigu gaarigaaga baarkinkiisa aad ku aabeeyeen oo meeshaan rabto iska dhigto haddii jidka wixii aad cabaysay iyo wixii adiga fidalaadkaaga ahaa iyo ziyaadada aad iskaga tuurayso aad u aabeyeelay haddii wixii jidka yaalay ee dadka dhibayay aadanba cibaado iyo ilaahay inaad ugu dhawaato darteed uga qaadi karin oo aadan ku dhiiran karin
ogow meeshii la rabay maad gaarin. waa laantii ugu hooseysay shucabul iimaan. marka koow waxaa la rabaa qofka mu'minka ah in caqiidadiisu ay tahay caqiido baraxla, iimaankiisu uu yahay iimaan xoogan oo aanan loodin karin. arrintaa mushkilad weyn baa waxay ka haysataa ilmaheena. ilaahay qur-aankiisa marka uu tilmaamayo hudan lilmuttaqiin aladiina yu'minuuna bilgayb baa ugu horeysa tusaale. inaad rumayso qaybka. qayb maxaa la yidhaahdaa? qayb waxaa la yidhaahdaa waxa aan lagu dareemi karin dareemayaasha shanta ah. waxaan la taaban karin, la urin karin, la dhadhamin karin, la maqli karin, la arki karin. macnaha dareemayaashii shanta ahaa waxaan lagu dareemi karin qayb baa la yidhahdaa. allah jala jalaaluhu iyo maalinta dambe aakhiro waxay ka mid yihiin qaybka. laakiin dhalinyarteena meelahan wax ku baranaysa ee jaamacadaha tegaysa khalkhal baa laga geliyaa inaba. waxaa loo tusaaleeyaa cilmiga iyo aqoontu inay tahay waxa aad shantaa ku dareemayso, wixii ka baxsanna aysan ahayn wax jira, aysan jirin. arday ka mida ardayda muslimiinta ah ayaa macalinkii waxbarayay galaaskaas wuxuu u tilmaamay arrintaas oo wuxuu yidhi macnaha wuxuu rabaa inuu dareensiiyo oo uu qalbigooda geliyo ilaaha aada caabudaysaan ma jiro subxaanahu watacaala camaa yaquuluuna ulmukiriin. wuxuu yidhi ma aragtaan sabuuraddaasay dhaheen haa. ma aragtaan qalinka haa. macnahaas markuu shay dhaho ma aragtaanba macnaha oo dareenkii aragga ma ku arki kartaan ay yidhaahdaan haa. wuxuu lahaa waa wax joogade wax jirowga. ma arkaysaan sabuuradda haa idan isubuura mawjuuda waa jirtaa. ma aragtaan qalinka haa. qalinku waa jiraa. suu soo waday buu wuxuu yidhi hal tarawna allah, ilaahay ma arki kartaan? markaasay waxay yidhaahdeen maya. suu yidhi ma jiro. haddaama la arki karin, haddii aan dareemayaashiiba lagu dareemi karin oo arag iyo taabasho iyo midna aysan ka suurtoobayn ma jiro ayuu ku yidhi. arday deki ahaa oo wax fahansanaa oo shaatir ahaa ayaa istaagay. macalinku meeshuu taagnaa buu soo istaagay. waddadii macalinku ma aragtaan sabuuradda haa. sabuuraddu waa jirtaa waa joogtaa. qalinka ma aragtaan haa. qalinku waa jira waa joogaa. ilaa uu soo gaaray inuu yidhaahdo hal tarawna caqla almucallim, macalinka caqligiisa ma arki kartaan? markaasay dhaheen may. wuxuu yidhi idan almucallimu axmed. haddaba macalinku caqli ma leh. maxaan ku garanaynaa haddaanaba arkayna inuu caqli leeyahay see ogaan karna? fabuhita alladii kafar. halkaasaa sheekadiisay ku xirantay oo xujadiisii ay ku burburtay. macnaha waxaa laga wadaa malaaxidada iyo dadkan aaminsan diin la-aantu in badan oo ka mid ihi waxay taargadgaraystaan da-yarta iyo dhalinyarada inay qodobka caqiidada shaki badan ka geliyaan ay khalkhal kaga furaan. waxaa la rabaa marka in lala sheekaysto waalidiintu ay arrintaa ku baraarugsanaadaan ku feejinaan. dadkeena waaweyna caqiidadeenna iyo iimaanka iyo waxaynu rumaysannahay aynu mar walba aynu boorka ka jafno aynu dib ugu noqono ka fikirno fiirino. wuxuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam cajaban liamri lmu'min. waxaa la yaab leh mu'minka arrinkiisa. ina amrahu kullahu lahu khayr. qofka mu'minkaa arrinkiisu waa wada wanaag. in asaabathu saraa'u shakar fakaana khayran lah. haddii wax uu ku farxo uu helona wuu mahadnaqaa, wanaagii khayr bayna u tahay. wain asaabathu daraa'u sabar. wax dhiba oo uu dhibsado haddii ay ku dhacaanna wuu saburaa, khayr bayna u tahay. walaysa dalika ilaa lilmu'min. arrintaasna mu'minka un baa leh. wax dhibaya buu ku saburaya, wax wanaaga oo helay buusan ku qooqay, buusan ku kibrayna ku shukri naqaya. arrintaasna mu'minka un baa leh. macnaha dadkan kaleeto waxaad arkaysaa qof baa wuxuu ka waayayaa qasabadii biyo kadibna wuxuu iska tuurayaa daarta. noloshii baa sidii uu rabay u socon waayeysa. gaari buu isu dhigayaa ama daar buu iska tuurayaa. wixii uu dhibsaday buu
كسبوا مؤمن كما كوحى على مديه سكمدة إن وحي نبل يوم كسبوا وكدوا الخاطر نبي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل تدخل السيدة يمكن كواليتي في عينهم بالواقع الامتحان أنبياء إلهي بعدتك أمجر هذه الامتحان بدنا كدما تدخل السيدة يمكن في عينهم بالواقع الامتحان هذا الأمر الامتحان كل سعود القاهرة وليس واحد لا تاع وليس كا فرحت باكدر ليس لكن والله هذا دون هذا طول سنة وكم من كأنك أن الإنسان قضاها وقدرته أن الإنسان وحكون دعية ودون خاطرية ولبو استي إلهي الله وحكداني أولادي واختلاف بإسقاطان سمي الركيسو أولادنا ما يسجلين ودون قاطرية سنة في المية ده دون قاطرية ويدون حاجة شوفته من بيد المسور وأنت شيطان تحربه وأنا أنت أولا حيسا معناها قفك مؤمن كأهل قدرته وما يسني قفك إن هذا ما تهيأ وكل ما كرتا لكن واحد لون بهني مرة بين دمقاتك وقاشان كاغا هذا أو دمقاتك الخشب سكوسو دو قدر كاس وحوكس للإعلام من وقت قدرتيس وحا قفك مؤمن كأهل غربا إن إيمان كيسو الحوقية هي عقيدة ديسو هي عقيدة عن شركيات وشبهات وحاصل نفسه وسجلين عقيدة براحة رم قدرتنا وآمن سيئة هي سيدة ما يستغل علي بن أبي طالب رضي الله عنه صحابي قيمها بدنا عمر والبفر أحسن أي أكل قاعد إذا تابعين في مقاسي واحد كل هذا علي محمد والبفر أحسن ثاني وحكي لي لما علمت هذا العجيب كله لما علمت أن رزقي لا يأخذه غيري اطمأن قلبي مركان عبادي وحي إلهي يقرأ إن أنا عدك لقاعدا كريم ونسك حسي نيدي دائما تعمل هذا ما إن هذا شقين وعاد وحوى ما كفر يسطو لكن وحوى يا شقين لأن أنا وحده هو أنت قوتي مع الله إن أتكلسونك وأخوش وهذا الدريمين إن واحد وين ودهلي لهيد أتكلم قام السريع لما علمت أن رزقي لا يأخذه غيري اطمأن قلبي إمام الشافعي أن هذا الكاس وكلام به جيد ونجري توكلت في رزقي على الله خالقي وحكى استطاع أن هلني ولدي أولادي حوالي وحوالي أقوامي نعلم إلهي ما رد لسعر سنة وأيقنت أن الله لا شك رازقي حلقيها بقال مكان ذا إني شرعي لي ظروفتي وتقيي وحي ونفل بيه وضدها سوق ليتمر ربي يكون سوى هذاك يساعد يضوء إسكفر توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يكن من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق أنا بحر المر بإيقري مالك استهتم ويؤمن يا رب إذا تلمامها قفك توصلنا هو الحسن لقرب تلمان تكواد طبعا تلمامات بمشاهدين تكواد وحوي قفك راسن عقيدة دي سويتها عقيدة صحيحة وبرع احترام وخمرا شركيات وشبهات وحي لمدة قف يقين أما يستلم ربي أمورتي ونكسنا وقبع يمين لبو عبادة صحة تلمان طلبات وحوية قفك إنه عبادة دي سوء هاي عبادة صحة عبادة وحي صحة نقطة لبشر دمك لقاها أن تكون خالصة لوجه الله وأن تكون موافقة لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم عبادة دون عبادة صحيحة نقطة هذا ترتيب لبضع شرطك فيه إلهي درتي موسى ميريسا معناها وحوى البعض نمر الدون يحذون تيسير ضمع الدنيا ما أنت إسكادك ربي درتي لوجه الله موسى ميريسا عبادة هذا وشرطك هو شرطك الله حوى عبادتنا تسمينيسي وتوقيفية موافق سنتهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرسل النبي وعبادي سنجد وحلقانا أمر الله سبحانه وتعالى كأنه قفكم فهمه فقه بعبادنا صلاة الضيئين فقه الصلاة إلى فهسنتها وسن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كنت كان جليس ودوه سيسن جليس كل
aad cilmi iyo diraayo iyo garasho u yeelato wax kaa hortaagan ma jiraan maantana wax walbaa waa fududaadeen caalamkii oo isu dooxday mobilkaagaad ka dhegaysan kartaa fiqhu salaad oo dhan oo luqadii aad rabto iyadoo lagu sharxayo aad ku helaysid inuu qofku fahmo oo fahmo yeesho cibaadadiisa si uu u ogaado cibaadada teeda saxda ah oo waafaqsan hadyigii nabiga sala allahu alay wasalam iyo mideeda khaldan waa inaad aqoon u yeelato fiqhu salaa fiqhu zakaa fiqhu siyaam fiqhu lxaj cibaadaadka shacaa'irta tacabudiga ah oo dhan iyadoo duuban baad helaysaa masaajidadii baa laga akhriyayaa wadaadada ay fadhiyaan sheekh cabdiraxmaan iyo culimadu jazaahum allahu khayran laga faa'iidaysto oo qofku aqoon u yeelo marka cibaadadaadu inay saxiix noqoto waxaa shardi koowaada bay muhiim inay tahay mid ilaahay dartii loola jeedo labo inay waafaqsan tahay hadyigii nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa kaloo lagaa rabaa cibaadada inaadan u arkin culays ku saaran oo iska dejinaysid ee aada ku faraxdo ku raaxaysato ku ilqabowsato kusoo xoosato nebi maxamed sala allahu calayh wasalam bilaal marka uu la hadlayo wuxuu dhihi jiray arixnaa biha ya bilaal aadaanka noogu raaxee oo salaadii baynu gelaynaayo goordhow ku raaxaysan doonaayo ku qalbi qabowsanaynaa macnaha farxad bay u ahayd waidaa xasamahu amr nabiga sal alla ly slam markii arrin ay murugo ku abuurto marka culays ku yimaado marka arrin uu qaadan kari waayo oo culayskeeda uu la xamili waayo ay ku timaado fazaca ila salaa salaada uu soo ordi jiray halkaasuu wuxuu ka helaa xasiloonidiisa wuxuu ka helaa xalka waxa arrintan muginaysa xalkeeda oo dhan halkaasuu ku fududaansa wuxuuna lahaa nabigu sala alla alay slam jucilat quratu cayni fi salaa ilqabowsigayga waxaa la geliyey salaada marka macnaha salaada aada ilaahay hortaagan tahay ilaahay hor istaagiisa waa inaadan ka carabin waxaad arkaysaa qofka maanta dadkeenna maanta jooga makhaayadda wuxuu fadhihi karaa intuu doono oo saacada ah banaankaa wuxuu la taagnaan karaa saaxiibkiisa intuu doono laakiin salaada ma la galay kii shaydaan ahaa baa kusoo degaya haddii imaamku wax yar dheereeyo qiraacada isagoo xagga dhan kale waa la maqlayaa duurkoodii ku daa hadduu atixiyaadkii ku daa ruuxankiisa lagama fadhiyi karo macnaha waxa uu rabaa in la dedejiyo oo la goobsiiyo salaada meeluu ku cararayo garanaysa meesha ugu fiicnaydu loo soo carari lahaa oo horistaagka rabbiya uu kasii cararaya idan waxaa la rabaa marka cibaadadaada dib u fiiriyo maxaa ka saxsan maxaa ka khaldan hagaaji wixii khaldanma cibaado saxa ood ku raaxaysanayso oo waafaqsan manhajkii nabiga sala allahu alay wasalam oo ilaahay dartii aada ula imanayso inay ahaataa lagaa rabaa midna ogow wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun ayaa rabbi jala jalaaluhu leeyahay hadafka weyn ee laguu abuurayba waa cibaadada ilaahay waxa bini aadamka loo abuuray waa liyacbuduun inay ilaahay caabudaan wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun cibaadat llahi waxdah wa cimaaratu ardihi baa lagu abuuray waxaa lagu abuuray inaa ilaahay caabudid ifkana aada camirtid oo khaliifat llahi fii ardihi baa tahay adduunkan adaa leh adaa ka taliya ilaahay khalaqa lakum maa fi lardi jamiican adaa lagu abuuray inaad ka faa'iidaysid oo kelmadda u dambaysa lahaatid muslim ahaan ood adigu maamushid waa shaqo kuu taaloo ku sugaysaa oo inuu ka gaabinay cibaadadu waa hadaf weyn oo lagu abuuray cibaadada hadafka laga leeyahay oo dambeetana muxuu yahay inaad heshid taqwa yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum leesh lacallakum tattaquun si aada u cabsataan oo taqwo u heshaan idan cibaadaa lagu abuuray cibaadadaadu marka waa inay sax ahaato hadafkii weynaayood adduunkaba u joogtay hadduu saxmi waayo adiguna waxaad noqonaysaa qofaan sax ahayn qofka toosan ee wanaagsan aynu raadinayno noqon maysa tilmaanta saddexaadii waxa ay noqonaysaa inuu qofku lahaado akhlaaq fadhida
حال هو أخلاق أخلاق عن إثبات بالدليل أخلاق عن إثبات جدين إن وحنين النبي صلى الله عليه وسلم وحديث في كملها وليأتي إلى الناس ما يحب أن يأتوا إليه ضدك وحضرنا قنتا ما سيف ولا نقميان وحضرنا قنتا سدا أدبو أرجعش إليك ولا نقمن قفوا بوخل ضمي خلط كوسوية ولا نقمن واحد ولا نقمتا سيدي أدبو أرجع لان لهاي إلا ولا نقمن أخلاق وناكسن وحوية مركا وفردان مدة أن كسان وبن وحال ليس كدعيا هدي لغا حلاجيو هدي لغو دبو هدي وحلو موغيستو إن آدم باتهايو لمد قاديلا كرتا لكن وحال روا انتي كران كايا إن أخلاق دادي وناكسني لإسلام وضع هيد أتكو فرعت كاته أيسن كسامين وحبناك كإيمانيا wadada adoo maraya ayaa gaarin kaleeto si khaldan kuugu dhacay waxaa la rabaa inaad arrinta xalliso adigoo akhlaaqdaadii wanaagsanayn iyo dhaqanka islaamka ee fiicnaa haysta guriga dhexdiisa arrin ka dhacday adigoo reerkii baa madaxa isla galay waxaa la rabaa inaad xalliso adigoon ka tegin akhlaaqdii wanaagsanayd iyo dhaqanka islaamka qof kalaa waxay dhex mareen mujtamacu وأساسا معها وأسكن حجرة وحال روا إن تحلي سوء دينهم أخلاق دين الأحسنين كالبورين وقف كلاتهم قف كي يقالي في عناية الأحسنة دي وأخلاقها دي حل ليس وتين الخلق معناها قف أخلاق دي سوء يفردهم وأخلاق توصل له وإلى أهل وحد أصولته نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحجره dadka waxaan ugu jeclahay oo maalinta qiyaame iigu soo dhowaan doona kuwiina ugu akhlaaq fiican nabigaana lagu ammaanay sala allahu calayh wasalam inuu akhlaaq wanaagsan yahay wa innaka lacalaa khuluqin cadiim iyo allah weyne wanaagsan ku yidhi marka akhlaaqdaa wanaagsan ayaa waxaad noqonaysaa qof dadka oo dhan ku hanta qof wanaagsan oo qofkii aynu rabnay ah وكي مدن وحسو كردين لها وحنا كبدل لها وحد كون نقول كرتا مرك أخلاق ذا وإنتهى متفردة ونسكت قدينين أو مر إيش اللي مرك استمر وسوا هذا يروي منه وحد وصلتين ودن كنن إيمانها إسلام ودن مسلمة إندونيسيا إسلام وكون قاين أخلاق ونال dadkii tujaarta ahaa ganacsatadii muslimiinta ahaa ee Indonesia tagtay ayaa waxay tuseen dadkaas akhlaaq wanaagsan markaas ay yaabeen oo yiraahdeen dadkani walaalaha macnaha ganacsiga wadaan dukaankan iyo kan waxa furtay ganacsato muslimiina ganacsadaha muslimka ah ee dukaanku u furan yahay maanta dad baa waxa uu imanayay customer dad badan baa soo galay dukaankiisa wax badan bay ka gadanayeen wuxuu u jeeday walaalkiisii kale muslimka ahaa oo aan isaga saas loogu galay oo cid badan aysan u galay marka uu kamiyadiisii intii maalintaa uu islahaa maanta way ugu filan tahay qaato ayuu wuxuu oranayay walaalkay baan maanta cid u gelinay isaga u taga ciddii dambe u imanaysay oo faa'iidada ziyaadada ka heli lahaa wuxuu u leexinayaa xagga kaleeto oo wuxuu lahaa ninkaas maanta waxba gadan isaga u tago oo ka qaata isaga kale weeyaan wuxuu yidhahdeen dadka saa isugu naxariisanayo isugu turaya maxay wataan xagee ka yimaadeen ilaa ay baareen oo markii dambe ay yidhaahdeen waxa weeye annaga islaamkaasaa noo dhigaya oo qaabkaas sida uu socdo khilaaf laa wanaagsan jirta xadid walaa xadid culays fara badan baa jira haddii markaa dadkaas oo kale la ahaan lahaa oo dhaqankii wanaagsanaa ee islaamka laga rabay iyo akhlaaqdii fiicnayd ay nolosheena ka dhex muuqan lahayd cid isqabataa iyo cid isqoonsataa iyo culays yimaadaa midna ma jirin akhlaaqdii wanaagsanayd baa laga leexday wax walbaana markaasay sidii saxda ahayd ka leexday waayahay waxaynu ku dhex jirnaa tilmaamihii
wanaagsan tilmaamaha qofka toosan ama tilmaamaha qofka muslimka ah ee wanaagsan waxaynu sheegnay 10 tilmaamood inaynu kusoo koobnayno tilmaam kastaana waxaynu niri waxay u baahan tahay fadhi gaar ah laakiin waa soo koobaynaa oo iska soo ururinayna tilmaanta afraad baynu tilmaami doonaa 3 tilmaamood baynu soo sheegnay 3 diyaa igu celinaya inta aan tan afraad sheegin mid ka mid ayaa sheegay caqiido wanaagsan caqiido inta ugu hooseyso ahayd in qofku isxisaabiyo si uu muxuu ahay waxlaaqi ama wax la qaado akhlaaqdiisu inay ahaato akhlaaq toosan space ugu hooseeya maasha allah aye cibaado saxa cibaado wanaagsan maasha allah waa gartay tilmaanta saddexaad waxa weeye inuu qofku waqtigiisa lumo tilmaanta afraad baan leenahay waa dhowridda waqtigaaga inaad waqtigu waa qiimo khaas ah allah jala jalaaluhu wuu ku dhaartay suurat alcasr walcasr xilliguu ku dhaartay waqtiguu ku dhaartay ilaahay wuxuu rabuu ku dhaaran karaa makhluuqaadkiisa laakiin makhluuqu waxaan ilaahay ahayn kuma dhaaran karo cid aan ilaahay ahayn kuma dhaaran karta lilaahi an yaxlifa bima shaaa min makhluuqaatih ilaahay wuxuu doono makhluuqaadkiisa ka mida buu ku dhaaranayaa laakin almakhluuq laa yaxlif ila billah bini aadamku wuxuu ku dhaaran karaa keliya ilaahay marka walcasri uu ku dhaartay qiimaha ay leedahay casarka ama xilligu uu leeyahay uu tilmaamaya tusaya kadibna waxaa lagu xijiyey inuu insaanku noqonayo insaan khaasira oo khasaaray oo aan macaashin marka laga reebo 4 tilmaamood midka yeesha macnaha waqtigaaga haddaad ka faa'iidaysan weydo haddaan si kale u dhigno oo waqtiga aad ku gabood fasho waxaa noqonaysaa qof khasaaray waxaa loo baahan yahay markaa inuu qofku maalin walba isxisaabiyo habeenkii marka aada sariirta aadin waa inaad isdul taagtaa maanta maxaad qabsatay maxaa wanaagood shaqaysatay maxaad ilaahay hortiisa u hormarsatay si maalintaada haddii aad macnaha saluugtay waxaad qabatay ay berri uga fiicnaato oo waqtigaagu uu ahaado waqti waxtar leh maxaa yeelay waqtiga waa la isweydiinaya waqtigan aad ku dhuminayso qof shaqaysanaya inaad daawato qof shaqaysanayaad daawanaysaa macnaha waxaa ka wada dadkan ciyaaraya ee sportka la daawado shaquu ku jira ka waran haddii anigoo shaqaysanaya aad ku idhaahdo warehouskaan ka shaqaynaya ama meeshaan tegaya ama xafiiskaan fadhiyo ama shaqada aan ku jiro iisoo daawasho taga haddaan idhaahdo qofna kuu iman bayo ku daawanaya kan laakiin shaqaysanaya oo isagu malaayiinta helaya inaad dul tagto oo daawatid wax kale wey waxaa la rabaa marka waqtigayga nin shaqaysanaya daawanayay hadhowdii kaa saari mayse inaad ka fikirtid ood si saxa waqtigaaga uga faa'iidaysatid baa nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaamati xataa yus'ala can arbac qof maalinta qiyaame ka dhaqaaqi doona meesha xisaabta iyadoo aan 4 la weydiinin ma jiro 4ta la weydiinayo waxaa ka mid a waqtigaagii maxaad ku qabatay waqtiguna ogaada hadda waa iska kooban yahay 24 saac haddaan idhaahno 8 saac oo ka mid a qofku waa gudaa maxaa soo haray 16 baa soo hartay 8 ka mid ah oo kaleetana waxbarashaad ku jirta ama waad shaqaynaysaa 8 baa soo hartay macnaha qofka 60 sano nool 20 sano leeyahay isagu 40 kale ma leeyahay gurdo iyo wax la shaqo 20 kaas hadhowdii marka wax kasta isku haysan doona maxaa qabatay cuntadaadii waxaad cunaysay cibaadaadkaagii shandanaha kalood qabatay waxaa la rabaa marka waqtigu isagoo awalba iska yaraa inaan wax aan waxtar lahayn lagu dhumo oo qofku ka faa'iidaysto waqtigiisa
tilmaanta shanaad ee qofka wanaagsan laga rabaa waxa weeye inuu kobciyo caqligiisa, inuu aqoon ku kobciyo, inuu akhris badan yahay, inuu dhegaysi badan yahay oo wixii waxtar leh u dhegaysto. haddaad aabbe tahay ama aad hooyo tahay oo aad guri ku nooshahay, ilmaha mas-uuliyadooda laguu dhigay waxaa la rabaa adigu inaad macalinka koowaad iyo kama dambeeyaba u noqoto. su-aalaha ay ku weydiinayaan iyo baahidooda haddaad buuxin kari weydo marka waa ayadar. waana sahlan tahay inaad buuxiso. cilmigii maanta wuxuu ka buuxaa internetka, isagoo meel walba af kasta lagu duubay. fannigaa rabtid baad dhegaysan kartaa ood sheekh u noqon kartaa, laakiin waqtigii aan hadda sheegaynay iyo saad u maareyn lahayd baa kaa xigta. waxaa la rabaa marka qofku inuu aqoontiisa kobciyo oo caqligiisa kobciyo oo aqoon uu ku kobciyo oo wax dhegaysto, wax akriyo. qaybta akhriska ilaahay aayaddii u horreysay oo uu soo dejiyo waxay tilmaamaysay akhri, iqra. baahida ay markaa qabeen aljaziira alcarabiya iyo carabtii markaa nebi maxamed laga soo dhex saaray sala allahu calayh wasalam ma akhris un bay ahayd. dad isdilaya oo gabadha u dhalatay iyadoo nool intay god u qodaan ku aasaya oo waxay rabaan samaynaya oo isdhacaya oo isboobaya oo mashaakilka ijtimaaciga ah iyo arrimaha bulshada oo ka khaldan ay ciiddaa ka badan tahay. baabuurkii u horreeyo ilaahay samada xagga samada looga yeeriyaa wuxuu noqday iqra, akhri. sirta ku jirtaa waxa weeye markaad wax akridid baa waxa kaa khaldan fahmaysa. markaad wax akridid baad isasixi kartaa ood khaladaadkaaga iyo sidaad u sixi lahayd iyo waddooyinkii lagu sixi lahaa aad fahmaysaa oo baranaysa. qofaan waxba akrin oo bil intay u dhalato u dhammaato isagoon hal buugna dhamaystirin, hal kitaab akrin, afka doonaha ku qornaade wuxuu ka leeyahay. waxaa loo baahan yahay marka qofku inuu caqligiisa kobciyo oo qof akhris badan oo aqoonta iyo barashadeeda iyo raadinteeda waqti badan geliyo. tilmaanta lixaad ee tilmaamaha qofka toosan laga rabo waxa ay noqonaysaa, waxaynu sheegnay qof toosan oo wanaagsan marka aynu helno baynu qofkii toosnaa iyo qof toosnaayo guri wada dhistay waxaynu ka heli karnaa guri toosan. gurigii toosnaa oo ubad ay qorshe u sameeyeen oo si saxa ay u tarbiyeeyeen kasoo baxeenna qoys wanaagsan laga heli karaa. qoyskii iyo qoysaskada mujtamac fiican ay noqon karaan. mujtamacii oo nidaam samaystaana dowlad wanaagsan uu noqon karaa. dowladdii iyo dowlado kaloo isu tegayna ay ummad ishaysata oo wanaagsan noqon karaan. qaabkaa marka meeshii u hooseysay baynu hadda rabnaa inaynu callayno oo dhisno waynu hagaajino. qodobka lixaad ama tilmaanta lixaad ee tilmaamaha qofka toosan laga rabaa waxa weeye inuu qofku ahaado qof naftiisa daryeela. waxaynu sheegnay caqliga marka hore inuu kobciyo qofku oo aqoon iyo wax akhris iyo macnaha cilmi uu ku kobciyo. naftiisa ruuxadeedana waxa ay uga baahan tahay daryeel iyo ricaaya ayay uga baahan tahay. waqtiga aada seexanaysid haddaad ilaalin weydo ee hurdada caafimaad baa ku jira. hadduu qofku habeen iyo maalinba isku bixiyo shaqo oo uusan habeenna seexan maalinna hurdo fiican helin, ma noqonayo qofkii wax soo saarka lahaa ee mujtamaca waxtarka u lahaa. waa in wuxuu ay miisaan lahaadaaba oo qofku hurdadiisa uu ka fikiro. waxyaabaha maanta hurdada mujtamaca muslimiinta ah kaga ciyaara kadibna markii hurdadii khalkhal galo noloshoo dhan khalkhalka gelinaya waxaa ka mid ah moobiladan aynu wada sidano. haadihi sumuum. moobilka waxaa laga yaabaa ilmahaagu inuu sariirta kuugu jiro ood is leedahay wuu seexday, laakiin bustaha hoostiisa wuxuu ku haystaa caalamkao dhan halkan ka wada hebel iyo ibraahiim adduun baa lala hadlaya.
saacadba saacad bay u dhiibaysaa salaada subax ka hor baa laga yaabaa inuu indhaha isku qabto ama salaada subax baa isagoo ciyaaraya ku dhaafto subaxdii baad soo kicinaysaa adoo u haysta inuu xalayo dhan jiifay isagoo waxba seexan buu kacayaa degdeg buu ku cadaynayaa ku labisanayaa iskoolkii buu tegayaa miiskuu ku seexanaya waxbarashadiina halkaasuu kaga haraya noloshuu ka haraya adigaaga weyn baa laga yaabaa inaad iska ilaalin weydo aafadan oo ay noloshaada iyo hurdadaada kaa saamayso waxaa loo baahan yahay marka si hurdadaadu ay kuugu nabad gasho guriga ka badbaada aafadan oo guriga go-aan ku gaadha in marka la rabo in qolka hurdada la aado mobaylka lagaga tago fadhiga oon qofna la gelin qolka jiifka mobaylkiisa isagoo wata iyo wixii internet xiriir lala aaladahan oo dhan fadhiga lagu isticmaalo marka laga xiroonayo oo waqtigii jiifka iyo sariirta la aadayona fadhiga lagaga tago adigoo maskaxdaadu ay filiid tahay oo adkaartii iyo inaad hurdadii si saxa u dhex gasho diyaaro aad qolka jiifka aadaysid dadkaasaa habeenkoodii iyo hurdadoodana ka faa'iidaysan kara maalintiina si wanaagsan uga faa'iidaysan kara waxaa la rabaa marka ilaalinta nafta waxaa ugu horeeya in hurdadii aysan macnaha waqtigeedii kaa dhumin cuntadaadu inay ahaato sidii nebigu sheegay sala allahu alay slam qofku hadduuba wax cunayo nebigu wuxuu yihi sala allahu alay salam maa mala'a bnu aadama wicaa'an sharran min batni in bini aadamku weel ka shar badan calooshiisa ma u buuxin calooshan waa gurigii cudurka markaad cunaysid cuntada fain kaana laabudda haddayba tahay inaad wax cunto waxaa la rabaa thuluthun liلطacaam 3 meelood marka loo qaybiyo baahidaada inaad qayb ka dhigto cuntada wa thuluthun lisharaab qaybna aad cabitaan ka dhigto wa thuluthun lilhawaa qaybna aada u banayso hawadii iyo inay markaas yani hawadaadu si dabiiciya usoo baxdo haddaad cunto ka wada buuxiso 3 qayboodba ka waran oo saxanintaa la egaa cunto dabcan caafimaad daray keenaysaa tusaale koobkan hadda haddii aan sonkor ka badan ku shubo marka aan walaaqo intii uu u baahnaa markay milanto inta kale hoos bay fadhiisanaysaa ma milmayso hoos way ka badan tahay sidaas oo kale raashinkaaga intii calooshaada u baahnayd maaha inta kale halkan ay fadhiisanaysaa hadhowdii baa waxay noqonaysaa qof dhuuman oo calool weyn kadibna cudur iyo halkaasay ka bilaabanaysaa iyo caafimaad darro waxaa loo baahan yahay marka qofku inuu cuntadiisa kantaroolo oo waxa uu cunayo iyo qualitygooda iyo noocay yihiin iyo saliidda iyo cusbada iyo sonkorta waxaas oo dhan uu iska ilaaliyo si caafimaadkiisa xilbaa ka saaran uu u ilaaliyo haddii uu markaas ku dari karo jimicsi orod socod dabaal wixii la midana uu ku darsan karo waxaas oo dhanna wuxuu kaga kaaftoomi karaa qofku inuu cibaadaadka si saxa u sameeyo maa salaatuleylka nebiga sala allahu alay wasalam oo cilmuhu ay ku dilaacayeen waxay ahayd jiim kasta iyadaa ka fiicnay asalaatu riyaadatu abdaan waa qofku inta markuu rukuuco nebi maxamed sala alla alay salam ragcadda keliya wuxuu akhriyayay albaqra iyo alcimra iyo annisa macnaha qiraa'o dheer markuu akriyo kadib intii uu taagnaa in la eg buu rukuucsanaa intuu rukuucsanaa in ku dhow buu sujuudsanaa haddaad marka cibaadaadka xitaa aad duhur ha noqoto hortiis salaatu duxa habeenkii intaadan seexan qadar 2 ragca waxay noqoto sunnooyinkaas oo aad waqti badan siisid socodkaagood badiso macnaha waxaa la rabaa iyadoo cibaado ah haddana dhinaca kaleeto inaad kaga faa'iidaysan karto inay caafimaadkaagii ilaa wax kastoo ilaahay ina faray innagaa dan inoo ku jirtaa maslaxadeena laynoo faray caafimaadkaagii bay qeyb ka qaadanaysaa
sidaa aynu hadda u fadhiisano atixiyaadka sidaa aad sahlan aad u kaxayso qof aan salaada weligiis tukan way ku adkaanaysaa inuu qaabkaa u fadhiisto maxaa yeelay si kastuu jiim u tago sidaa aad u samaynaysid ee faraha aad xagga hore qiblada ugu jeedinaysid cid aan salaada aqooni ma samayn karto jimicsiga noocaasa jimicsi ka qiimo badan ma jiro waxaa la rabaa marka qofku inuu awoodaha ilaahay siiyey ka faa'iidaysto caafimaadkiisa iyo naftiisa markuu ilaaliyo daryeelkeeda toddoba waa gabagabadii baynu ku dhownahay insha allah tilmaanta toddobaad ee tilmaamaha qofka toosan laga rabaa waxa weeye inuu kasab inuu sameeyo inuu kasbado marka uu awoodi karo hadduu awoodo inuu shaqaysto yani gacanta sare ayaa waxay ka qiimo badan tahay gacanta hoose qofka muslimka inuu gacan sare noqdo oo isagu wax bixiyo ayaa waxay ka fiican tahay inuu gacan hoose oo wax hoosata noqdo meelahan aynu joogno waxaa dhici karta qof aan u baahnayn oo karaya inuu shaqaysto inuu shaqada isagoo fududaysanaya ka wahsanaya yidhaahdo haddaan shaqaysto iyo haddaan shaqaysano guriga fadhiyo isku in baan helayaa marka maan iska fadhiyo maxaan isu dhibaya laakiin asalku waxa weeye sharaftaada ku jirta iyo karaamadaada inaad shaqaysato nebi maxamed sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi laan ya'khuda rajulu xabbahu inuu inta xarigiisa qaato duurka galo soo xaabo soo murto macnaha inaad weer hoos tagto shaqo aan macnaha skiil kale iyo xirfad kaaga baahnayn inaad ka shaqayso khayrun lahu min an yas'ala annaasa actawhu oo manacuuhu ayaa waxay uga fiican tahay inuu dadka wax weydiisto dadkaasi ama joobsanta ha noqdeen ama qeyrkood macnaha inaad dad wax weydiisatid actawhu oo manacuuh oo ay markaa ama siiyaan ama u diidaan waxaa ka wanaagsan inuu isagu duurka galo uu shaqaysto oo xamaasho xamaali uu galo gacantaas sare inaan noqotay waxaa dhici karta marka qofku inuu is yidhaahdo haddaan hadda shaqo galo gurigii baa igu soo fakanaya noloshii oo dhan baa waxay noqonaysaa maalkii intii anagoo gurigeyga jooga aan qaadan lahaa oo baan haddaan xamaali galona qaadanaya hadduu marxalad ay tahay uu kaga gudbayo tusaale ahaan oo uu isleeyahay macnaha waxba fatradan ka faa'iidayso oo waxbaro oo intaa noloshiisii la daboolayo uu xirfad barto hadhowdii si fudud isagoon xamaal gelin ugu shaqaysan karo oo skiil iyo aqoon kororsado waa wax la garan karo oo markaa waktigii markuu aqoontii uu kororsaday shahaadadeedii iyo khibraddeedii helo kadib shaqo rasmiya oo uusan kadeedkii xamaaliga kala kulmayn uu geli karo laakiin waxaa laga yaabaa inuu qofku makhaayad fadhiyo waqtigiisa oo uusan waxna faa'iidin 20 sano inuu waddanka joogo afkiisina uusan baran iska dhaafin karo marka waxaa loo baahan yahay qofku inuu noqdo qof kasban kara oo shaqaysan kara hadduu awoodi karo kaana awoodi karin ilaahay baa ma kalifin waxaan ka hadlaynaa qofkii isagoo karaya awoodi kara sideed waxa weeye inuu qofku ilaaliyo balanska inuu dheelitirnaanta ilaaliyo qof dheelitirnaanta ilaalin kara inuu noqdo oo tusaale ahaan shay walba booskiisa dhigi kara xikmad isticmaali kara wax walbana xaqiisa siin kara macnaha aan dheeli lahayn haddaad hal dhinac ugu badato dhinacyo kaleetaad ku tumanaysa salmaan alfarisi waqtigii nabiga sala allahu alay wasalam uu walaaleynayay saxaabada almu'akhaa bayna almuhaajiriin waalansaar dadkii uu walaaleeyey waxaa ka mid ahaa salmaan alfarisi iyo abudardaa abudardaa wuxuu ahaa nin cibaado badan oo dhinacii cibaadada u dheeliyey arrintii guriga iyo reerka xaqiisii iyo qoyskii iyo la shaqayntoodii iyo xaqooda siintoodii iyo waqti la wadaagiddoodii iyo waxaas oo dhan wuxuu ku daray dhinaca kaleeto oo cibaadada maalintii o dhanna sooman habeenkii o dhanna cibaadayo qiyaamuleyl iyo salaad u taagan noloshii kaleeto macnaha balanska waxaa dhumay dheelitirkii baa dhumay
سلمان الفارسي أيها أركي مالك أبو الدرداء حاسكيسي واسكمل بيسن ولبسهم وأن معناها سوى مرتبوه وح أركي جوي يقولوا وأن هاي يقول الماسك كدم يد الله وحده حق ودعي إيش يسوون يكونون جوا مستقبلون وحلا قالهم سيدنا أمه شيء واضح ضيع كامل وضعي وحي كنت لي ولا الكع من الدون ذن كلمة ومحال سند لي ولا شيء لا سجوا ضيع أبو الدرداء وحوي علي سلمان وحوي علي أبو الدرداء وحوي أبو الدرداء سيدنا نسح معه أعطي كل ذي حق حقه وحول بحق ما إليه هنا حق هذا السيد نفط هذا حق ويقول هذا حق هذا السيد وردوا وحبها هنا حق هذا السيد سيد حق هذا السيد غير بحق ويقول إليه حق هذا السيد إلى هنا حق ويقول إليه هذا السيد حق السيد أو لنعنا كلاته هأمبورين أو هكبرين أو بحق منه وحي أنت إنه يسحت هاي ينكلته وحي نويدين إن النبي صلى الله عليه وسلم واحد كان نسي أنا واحد رواية إلهي إن واحد ولا سنة وهر من الصداق هدي صداقات شيء يسا سحت هاي نبي محمد المنتظر صلى الله عليه وسلم نبي جميل بعدين نبي يقول وحي يلي صداق سلمان كل شيء ويا مكدايو سلمان سدو شيء بصحيح أعطي كل ذي حق حقه من دون بحق يسسين هديلين قلنا حوبني وهذا كانوا يسأل صحابتي أنت ويا ما دين حاسك النبي صلى الله عليه وسلم ويدي صلاة النبي عبادة ديسي كذبنا وحي هذا والله رسولك إلهي ودم بيجي سوريا كيسي لأنه ولا رافع باسنا صمينا إننا كأنه حجاب الجنة كذبنا وحى من والبايعي أنا وصلنا صمينا يا معناها كي كواد بوحي أنا وانسوم يا ولي يأفر ما لن تستصوم بكون جاية كي كانوا يقولي أنا هبين والبوة تغنانا يا قيام وأنا تغنانا يا سيحان معي كي كانوا يقولي أنا دمر بمبوسنا يبحي مشغولنا ليه لما كان أنت الوشة يقولي أنت أصي واحد قدم يغلوب وأنت صح وحلقوا منا يا للتركي صحنا معها أنا وأسوميا وأنا أفريا وتكنيا وأنا سيحنيا دمر كانوا مرسليا من النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني قفك السنة بيدا أنا وساسا أمم والله يسدا أمم والله قفك النعام أمم ذي كم معه من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أنا واحد الرواية محور بحق ولا وسيء وقفك هذا قف ميزان وحكو سمايا وحول بيسون اللي تريه qodobka ama tilmaanta sagaalaad ee tilmaamaha qofka toosan laga rabaa waxa weeye inuu ahaado qof waxtar leh inaad ahaato qof waxtar leh naftaada kaliya inaad u noolaato mujtamaca iyo bulshadaada nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam khayru nnaasi dadka waxa ugu wanaag badan anfacuhum linnaas kooda dadka ugu waxtar badan سؤال أهم أنا ذكرت بخير إيمان يعني ويا ردي عند الله كسودك يعني وحي هذين سجود يجوا ودي يقولوا هوش هذا هم مشغولة ما أنت فاهم اسمه لكن الدين ليس واقفين كانوا إلا ليس واقفين واحد دين يعمل أنا دين ما هذا وأنتي عن ثلاثة دلوا ذلك ودلوا ذلك وقت يجي ماسك أنا إيش يعني هذا بحي أنا قبل الله عليك إيمان يوقفته دارس بافجين كانوا أصلا وناسا وحدينا يا من جلال وحال رأينا أن هذا كله أمور المركة عاد بحي عاد أودي كرتين بلارين كرتين بلارسين قفنا ونور هذا مجتمع يصير مشديسا قف وناسا توصل وكل جزء السنة والوحبة ترمى مشدنا هالكي لنا نيجي عسين معي قولوا وناسا ما بيسين معي qoys wanaagsan wax ku soo kordhinay ana silsiladii aan rabnay ee noloshu ka dhismaysay ilaa ummad wanaagsan la helo qof dhaqaajin kara ma noqonayo haduusan ahayn qof waxtar leh khayru naasi anfa'uhum linnaas min nabiga sallallahu alayhi wasallam
وحديث كلا كلها لأن أعتكف في مسجد لأن أمشي مع أخ لي في حاجته إن ولا مسلمة دم أوليه أنت أرعى لسوق ويوم أسوقته خير لي يا وحي إيجونا أكسنتهي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا مسجد كيغا إنا بالفضيو كو اعتكافا هذا مسجد كنبي وقيمة أوليه أكرميسا اعتكافك يصلاة مسجد كاللوك كذو أجرك إلى أكرميسا عدة اعتكاف يسوى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيميسا أكرميسا دنا وحليه وحاسو أنه حكا قيمة بدن ويقفي عن إن القف والآن كي يدن وليه هاي لسوا قبطه راعه معناها ضدك مجتمع أنه خير الناس أنفعهم للناس ضدك waxa ugu fiican dadka ugu waxtarka badan ko inaad ahaato qof waxtar leh oo naafic lil ghayr hadii in saxanka cuntada lagu keeno laga qaado aragto oo macnaha sariirtii aad seexatay lagu goglo aragto wax walba macnaha nolosha xitaa guriga sidii la rabay u soconayso waxa la rabaa inaad wax ku darsan karto reerka oo aad mujtamaca wax ku darsan karto masaajid baa timi waxbaa lagu siiyey wixii lagu siiyey sidii lagu keenay waa inaad celin karto oo aad aduguna qaybtaada ku darsan karto masaajidka wixii ka qabiya waa inaad buuxin karto gurigaana wixii ka qabiya waa inaad buuxin karto waa in qof waxtar leh aad tahay oo qof walba uu kaalintiisa ku tooso oo wax ku daro reerka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam kaana fi khidmati ahlihi ولجسوا كشقيني غيرك واحد قبلني سوى عندنا مدحونيه ومضى سوى مضى منهم جامعية هدية سوى رسولك إلهي مضى منهم نوصل جريئة مسجد كا دعوة مركز كا جامعته ومضى يقولي يمين والبا ماشي هذا مكجفة إيدينا يحقق المسيني وحقها قف والنور ضدك أنا وقدام بين qodobka u dambeeya ama tilmaanta u dambaysa ee laga rabo qofka toosan waxa weeye inuu ahaado qofku dayasho mudan in aad ahaato muraayadna macnaha waxa aad sheegaysid intii awooda bini aadan baa tahay waa khaldami kartaa nuqsaan baa kaa dhici kara sibay kaa noqon kartaa shaydaankaa kaa xoog badan kara aabaheen aadan jannada ka soo saaray adiga muu daaday nebi aadan oo nebiya leexiyey bini aadan baa tahay waxbaa kaa si noqon kara laakiin inaad adigu ka shaqaysid intii karaana inaad noqotid qof waxa uu sheegayo ka run sheega qof tusaale u ah dadka ku xeeran qof tusaale u ah inaad noqotid oo aad qudwa xasan oo dayasho mudan aad noqotid tusaale ahaan adigoo gaarigaaga wada ayaad qof dada isku qabateen ama lugaynayaba waad xanaaqday xanaaqa markaad xanaaqday waxaad garan weyday akhlaaqdii wanaagsanayd ee ahayd adigu sidaada ha ka tegin oo dhaqankii wanaagsanaa ilaali kadibna waad aytantay xanaaqaagii baad celin weyday waad aytantay ha ka filin marka ilmahan ajlada ah ee kula socdo duubaya wax walba inuu isagu abudayna noqon doono isna berito markuu xanaaqo waa caytamaya adigaana ah macalinkiisii baray cayda marka lagu soo waco oo ilmahaagu teleefonka qabto haddaad ku tidhaahdo aabba ma joogo dheh ama hooyo ma joogto dheh ha ka filin inuu beri run kuu sheego because adaa macalinkiisii beenta baray ah aduu kaa qaadanaya casharada haddii hooyo ahaan gabadhaadu waxay fahmaysaa hooyo saaxiibadeed markay u tegayso dhar khafiifay xirataa iyaduna beri saaxiibadeed markay u tegayso waddadaaday maraysaa ha la yaabin adigaa macalinkeediiya haddaad aabe waddada taagan oo makhaayadaha hortooda taagan oo ka sheekaynaya oo ciddadaas waktigiis oo dhan ku dhuminaya oo gurigii iyo macnaha sidii la rabay waktigiisa u maaraynaya aad tahay ilmaha inuu banaanka istaago oo jidkaa ku sheekaysto iyagoo kooxa ay waddooyinka dhoobnaadaan ha la yaabin maxaa yeelay macalinkoodii baa tahay waxaa la rabaa marka inaad ka fikirto wax kastood samaynayso
dadkaaga dayanayaa jira unax oo aad noqoto qof qudwo ah oo dayasho mudan inahaasaan kusoo koobaynaa insha allah tilmaamahaas wanaagsan iyo kuwa kaleeta ee qofka muslimka ah ee toosan laga rabo kuwa ku tilmaamo allah ina ka dhigo kuwa marka ay macnaha wanaagsanaadaan oo tilmaamihii wanaagsanaa ay ku tilmaamaan iyaga iyo dad kaleeto oo tilmaamaha ku tilmaamana ay nolol wada dhisaan guryo wanaagsan dhisaa guryihii wanaagsanaa ubad wanaagsan kasoo baxo oo qoys wanaagsan noqda qoyska iyo qoysaska kaleeto ay mujtamac wanaagsan noqdaan mujtamacii iyo mujtamacaad kaleeto oo isu tegay ama mujtamac kale macnaha bulshadii oo nidaam iyo dowlad samaysatay ay dowlad wanaagsan noqdaan dowladii iyo dowlado kale oo isu tegayna ay umma islaamiya oo ishaysato wanaagsan noqdaan silsiladaa dheer oo wanaagga asalka macnaha uu u yahay ayaa ummadda islaamka u taala nebi maxamed sal alla ly slam taasuu ka shaqeeyey qofkuu dhisay kadibna wuxuu la dhisay guryihii qoysaskii ilaa markaas la helay khilaafa islaamiya iyo mujtamac islaamahu isku duuban waa midda maanta macnaha dhawaaq kasta iyo saxwo kasta iyo dacwo kasta ay ka shaqeynayso haddii marka meesha laga bilaabaya ay ka khaldanto oo un eedda aan la dul istaagnaano qoysas iyo mujtamacaad iyo dowlado laakiin qof aan u dulsannahay waxba ma hagaajin kara waxaa loo baahan yahay marka qof walba inuu dib isu fiiriyo oo tilmaamaha iyo kuwa lamidkaa uu iska raadiyo si uu u noqdo qof wanaagsan maxaa yeelay in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim ilaahay dad wax u dhacay ma bedelo ilaa ay qof isu bedelaan ilaahay hayna waafajiyo sida wanaagsan hada wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa